qabuuro ay leeyihiin dadka muslimiinta oo ku yaala magaalo kamid ah gobolka Minnesota ee wadanka Mareykanka ayaa maanta waxa lagu aasay Allah u naxariistay Cabdiqaadir Maxamed Mursal oo ahaa saxafi weyn oo bahda warbaahinta Soomaaliyeed muddo dheer ku soo jiray waxaana aaskiisa ka qayb galay dad fara badan oo isugu jiray culimada diin iyo qaybaha bulshada ku nool gobolkaasi oo ay Soomaalidu ku badan tahay wariye deeq darajo oo ku nool gobolkaasi kana mid ah dadka aaska ka qayb galay ayaan goor dhaweyd qadka ku weydiiyay bal inuu sharaxaad naga siiyo dadka ka soo qayb galay aaska iyo sida loo sagootiyay marxuumka ayaa la xusay cabdi aad u maasan tahay waxa maanta qabuuraha muslimiinta ee magaalada Banasville ee gobolka Minnesota aan ku soo aasnay Allah u naxariistay ustaad Cabdiqaadir Maxamed Mursal oo kamid ahaa wariyaasha ugu caansan ee Soomaalida Cabdiqaadir Maxamed Mursal muddooyinka ugu dambeeyay ayuu ka xanuunsanayay gobolka Minnesota waxa markii soo hore ku dhacay xanuunka coronavirus markii dambe ayuu ka bogsooday laakiin saameyntii uu ku reebay xanuunkaasi ayuu la xanuunsanayay muddo 2 bilood ku dhow waxaan leeyahay samir iyo iimaan Allah ka siiyo awlaadiisa asxaabtiisa iyo waliba guud ahaan bahda saxaafadda waxa halkan maanta aaskiisa ka soo qayb galay dad aad iyo aad u tiro badan oo ay u badnaayeen masaajidadii uu ku dukan jiray waxa halkan maanta soo istaagay in ka badan 10 imaam oo ka marqaati furay inuu ahaa nin aad iyo aad u wanaagsan oo waliba magac ku leh bulshada isla markaana ka qayb qaadanayay dhanka diinta islaamka Cabdiqaadir Maxamed Mursal Allah u naxariisto aad buu maasan yahay wariye deeq darajo oo ku sugnaa goobta lagu aasay Allah u naxariistay marxuum Cabdiqaadir Maxamed Mursal oo kamid ahaa wariyaashii rugcadaaga ahaa ee ugu waaweynaa bulshada Soomaaliyeed haddaba in yar aan idinka maqashiino ducadii halkaasi laga jeediyay iyo dardaarankii culimadii ka qayb gashay aaska marxuumka halyeeyaal isagoo kalaana Allah inoo soo kiciyo awlaadiisina Ilaahay subhanahu wa ta'ala cidibtiisa Allah dhawro raadkiisa Allah ilaaliyo wixii uu caruurtiisii Ilaahay ciwad khayr qaba adduunka ku siiyo iyagana Ilaahay subhanahu wa ta'ala maalin kaga farax badan yihiin aaba inay la kulmaan fi jannatil firdaws ala Allah ku kulmiyo inta kadib waxa joogta waa min calaamaat husn al khatima kamid tahay waxa jooga sanataradii masaajidada oo dhan Daarus Salaam oo dariskeena ummatul islaam sheekh Maxamed Taajir midigtay taagan oo gaar ahaan waliba marxuumku masaajidkii inta badan kolkaan anigu arkayo safka hore iyo masaajidkan ku arki jiray oo ahaa ayaa inala jooga waxa jooga masjidur rahma jooga waxa jooga masjidud dacwa waxa jooga maxaan ku dhaahdaayay imisa masaajid Carmel masjid baa inala jooga imaamiyadii oo dhan baa saf ku jira way ducaynayaan insha Allah ta'ala kulligeen buu naga geeriyooday halkan wax fara badan buu xabaala ka soo qayb galay isagoo duugaya mar kale waxaan leenahay Allah u naxariisto rabbi subhanahu wa ta'ala Allah u naxariisto xabaasha soo galabayna kulli galayna Allah u naxariisto culimada u dhaafayay waxaan leeyahay maadaama uu nin caan ahaa Soomaali weyn laga yaqaanay waxaan leeyahay walaalayaal Cabdiqaadir Maxamed Mursal ma iska cafinay ma cafinay sanad ka hor ku dhawaad wala soddon sano ka badan ka hor shaqadii dacwada islaamka ee Soomaaliya ka socotay asoo suxufi ahaa ilaa had intaan ka xasuusnahay waa la isixi karaa qofkii khaldama bini aadam uu khaldama intaan xasuusnahay suxufi la yaqaano sida Cabdiqaadir Maxamed Mursal oo dacwada toos ugu jiro waxaan ka ogahay isaga inuu ahaa أنا مرخاتي كاه شيخ أحمد مرخاتي وكيه هاي علماء بدنا هالكان جوكتو ساقو صحافة كل حجرة هذا وحنا هاي وحن أتاجنا هاي دعوات الإسلام كدين الإسلام كإلا إلاليو عبد القادر المرسل ولا كان شيخ أحمد تقول شيخ هادي دد يركمتجن حافظ يركمتجن ومضى إسلام قاسة ومضى صوماليات أنا وكتجي waa tahay haddaan intaasi ku dhaafno goobtii lagu aasay marxuumka iyo dadkii ka qayb galay sagootintiisa ee aaskaasi isugu yimid bal markana waxaan eegi doonaa Cabdiqaadir Maxamed Mursal waxa uu ku jiray warbaahinta Soomaalida muddo 50 sano ah waxaana uu ka soo shaqeeyay warbaahintii qaranka gaar ahaan Radio Muqdisho iyo wakaalada wararka ee Sona waxa sidoo kale uu ka soo shaqeeyay warbaahin kale oo caalami ah oo ay kamid tahay warbaahinta qaramada midoobay ee la yiraahdo Ergo haddaba waxaan magaalada London goor dhaweyd kula kulmay محمد أحمد حاج عقمديجة oo ay soo wada shaqeeyeen marxuumka waxaan wax ka weydiiyay bal inuu noo sheego waxa uu ka garanayo ama uu ka xusuusto Allah u naxariistay marxuumka inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun saaxiibkan Cabdiqaadir Maxamed Mursal Allah u naxariisto waxa uu ahaa nin aad u qiimo badan runtii
marka qofka laga hadlayo Soomaalidu inta badan wax u badan tahay qofka marka uu dhinto ayay ka sheekayaan wanaagiisii laakiin waxaan ku sheegayaa isaga oo noolaa in wanaagiisa laga sheekaynayo aniga idaacadda markaan ku biiray 1980 ama 1980kii aad buu iiga horeeyay shaqada oo isagoo ku bilaabay farsamada ayuu haddana wariye noqday wuxuu ahaa nin wax abuura wariye ma ahayn kaliya barnaamij ama akhriya ama farsameeya laakiin waxbuu abuuray barnaamijyo cusub uu soo saaray wasaaradda warfaafinta qaybaheedana dhammaantood wuu ka qayb galay raadiyihii wuxuu ka ahaa wariye wuxuu ka ahaa maaragtay farsamayaqaan joornaalka wuxuu ku soo qorayay qoraalada maaragtay sheekooyinka oo dadka lagu fahamsiiyo sawirrada kala duwan barnaamij ayuu ku soo kordhiyey radio muqdisho ay ka mid yihiin barnaamij la yiraahdo dalmar oo ahaa barnaamij loogu talagalay dadka qurbaha jooga iyo dadka gudaha jooga in lagu wada xiriirsiiyo codadkoodii soo diri jireen waraaqay soo diri jireen dalmar baa la oran jiray waxaa jiray barnaamij kale oo isagana idaacadda joogta uga bixi jiro musalsala oo olol iyo hooyadii loo bixiyey sheeko la yaab leh ahayd isaga ayaa qaabeeyey isaga ayaa hagaajiyey waxaa kaloo gacan ku siiyay Allah u naxariistay Abuukar Maxamed Jamcuun oo qaybta farsamada waxaana matalay rag iyo dumar ka shaqeynaya wasaaradda warfaafinta oo wariyaashi ah dabcan intii dambe burburka Kenya ayuu markii hore u badnaa halkiisii uu ka waday aqoontiisii iyo meheradiisii dhinaca warbaahinta idaacaddii jamciyadda quruumaha ka dhaxaysa ayuu ka noqday tifaftire waxa uu ahaa nin dadka bara sida wariyaha loo noqdo qof kasta uu soo dhawaysan jiray ama ha noqdo qofkaasi qof isaga la shaqayn jiray ama ha noqdo qof aan la shaqayn jirin macallin ayuu ahaa dadka wax bara ama gudaha Soomaaliya ama dibadda intaan dambe hadda uu tagay xagga Mareykanka waan la xiriiray waa sheekaysanay mar walba xiriir iyo in la isu keeno dhalinyarada la isu raadiyo warbaahintii hore tii dambe dadku isku xiraadaan dadku horumar sameeyaan wali waa ku sii sheegaya maaha oo kaliya warbaahin xagga diinta xagga horumarinkeeda dadka in lagu dhiirigeliyo inay diinta bartaan in diinta lagu dhaqmo arrimahaasi oo dhan waxay ahaayeen arrimo aad iyo aad u quman oo Cabdiqaadir ka shaqayn jiray hal barnaamij iyo laba lagu soo koobi karo aniga runtii wuxuu ii ahaa tusaale fiican radio muqdisho wuxuu ka gaaray inuu noqdo madaxa radio muqdisho maxamed axmed xaaji cagmadhige ayaa intii aan waraysiga ku jirnay waxa uu ila wadaagay qiso cajiib ah oo uu ku tilmaamayo shakhsiyadda uu lahaa Allah u naxariistay marxuumka taasi oo si gaar ah isaga u qusaysa waxaana uu yiri waxaan ku xusuusinayaa maalmaha ka mid ah ayaan radio muqdisho ugu galay xafiiskiisa baqshada uu yiri baqshadan waxba ku jiray ma ku nasiibsana aniga markaas shaqada 2 sano jooga markaasaan iraha waa ku nasiibsanaa baqshadii aan soo qabtay waa furay waxa ku taala ka timid wasaaradda arrimaha gudaha iyo dawladda hoose ku socota radio muqdisho codsi wariye raaca wafdi balaaran oo ku wareegayo gobolada degmooyinka tuulooyinka fursad la yaab leh ahayd waa aqbalay waxaan ku wareegay gobolada iyo tuulooyinka iyo degmooyinka Soomaaliya iyadoo waliba 82kii xareedu ay eegaagto guud ahaan meel walba Ilaahay oo dhulka barwaaqiyay marka Cabdiqaadir wuxuu ahaa nin aan dadka kala jeclayn wanaagooda iyo fiicnaantooda iyo soo dhaweyntooda ogow bini aadamka Ilaahay waa shuhada waa marqaati ayaan leh hadday dadku kugu sheegaan inaad tahay nin quman baad dadku hadday kugu sheegaan inaan qumanayna ma qumanid ummaddu way isku raacsan tahay shakina ma laha arrintaas ugu dambeyn maxamed axmed xaaji cagmadhige ayaan weydiiyey waxaan ku xusuusan doonaa marxuumka iyo gaar ahaan waxa waajib ah ee ka saaran bulshada gaar ahaan bahda warbaahinta in la sii wado waxyaabihii uu caanka ku ahaa Allah u naxariistay Cabdiqaadir Maxamed Mursal waxa lagu xusuusanayaa in la waraad raaco wixii uu sameyn jiray isu keenida bulshada isu dumida bulshada in qofka dhibaataysan la taageero waxaan ku sheegayaa marka qof dhinto warbaahintii ka tirsanaa ama dafl yaqaan uu yahay abaabulka oo ka abaabulaya meeshiisa Mareykanka in la isu yimaado dhaqaale ahaan wax la taro qofkii loo duceeyo yaani arintaasi waxay ahayd arintii ugu dambeysay ka wada qayb galnay Allah u naxariistay Cabdullaahi Cali Afrax yare markii uu dhintay muqdisho dadkii aad u abaabulay in la xusuusto walaalkeen ayuu ahaa qaybta Mareykanka isagoo jooga isaga nin kale daris hayeen Cabdiraxmaan Sheekh Mursal la yiraahdo iyo waliba Naadiye Cali Cilmiyo waa dadka Mareykan jooga oo runtii ah dad aan la iloobi karin marka Cabdiqaadir Maxamed Mursal Allah u naxariisto qabriga Allah u waasiyo kitaabkiisana gacanta midita Allah ka siiyo aad buu maasan yahay kaas wuxuu ahaa maxamed axmed xaaji cagmadhige oo goor dhaweyd aan magaalada London kula kulmay si aan wax uga weydiiyo waxa uu ka yaqiinay saaxiibkiisa Allah u naxariistay Cabdiqaadir Maxamed Mursal oo ku geeriyooday wadanka Mareykanka haddaba Cabdiqaadir Maxamed Mursal waxa uu ku dhashay magaalada Muqdisho sanadku markuu ahaa 1953 waxaana la sheegay in uu waxbarasho u aaday wadanka Ruushka sanadku markuu ahaa 1975 haddaba inta aan ka bixin barnaamijka waxaa jiray dad badan oo Soomaaliyeed oo baraha bulshada ku wada xiriira
oo sida muuqatay maanta aad iyo aad uga tacsiinayay geerida waxaana ay tacsi u dirayeen ehelada asxaabta iyo bahda warbaahinta uu ka baxay Allah u naxariistay Cabduqaadir Maxamed Mursal. guud ahaan barnaamijkan inta ayaan kusoo gabagabaynaynaa waxaan ilaahay ka baryaynaa inuu naxariistiisii janno siiyo isaga ayuu marti u yahay caawa innagana waxaan ilaahay ka baryaynaa in gadaashiis uusan na fidnaynin oo uu na badbaadiyo guud ahaan barnaamijkan inta ayuu ku dhan yahay waa ayaan Xuseen Cabdi oo idinka codsanaya inaad u soo duceysaan marxuumka dhammaanteen waxaan idin leenahay nabadgala wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh